suuqa iibsiga ciyaartooyda waxyaabaha maanta ugu waaweyn waa Eriksen, Solskjaer, Khalid Koulibaly, Dani Ceballos, Maguire iyo Matic. Paris Saint-Germain ayaa leeyahay waxay loolan adag la geli doontaa kooxda Real Madrid si ay kaga dulqaado laacibka iyadoo doonaysa Tottenham ka tirsan Christian Eriksen. 27 jirkan ayaa ka tagi kara garoonka kooxdaasi ay ku ciyaartay Tottenham. Mail on Sunday ayaana daabacaysa PSG iyo Real ay dhammaan ku wada dagaalamayaan markii la eego laacibkaasi. Manchester United ninka leeliya Ole Gunnar Solskjaer ayaa mustaqbalkiisa markii la eego Old Trafford ka bixi kara haddii uusan Manchester meel u gaarsiinin waa sida uu sheegay isaga. haddii aan faa'iido fiican u keeni waayo United-ka waan isaga dhaqaajin doonaa ayuu yiri Ole Gunnar Solskjaer sida ay soo xigtay Metro. hogaamiyihii hore Manchester United Alex Ferguson ayaa isna xirada tababarka yimid si uu ula sheekaysto markii la eego wax badan ugu soo kordhiyo macallimiinta xaaladda ay ku xun tahay Solskjaer iyo ku-xigeenadiisa oo Michael Carrick. sawir la soo qaaday ayaa la daawaday in Ferguson waqti uu shalay la qaatay markii la eego xirada Carrington ee United ku calaamadeeyso. Manchester Evening News ayaa qortay isla United kan ku guda jirnay kooxdan ayaa iyaduna diyaar u ah inay sameeyso isbedelo markii la eego dhanka suuqa ah markuu furmo bisha Janaayo sida ay qortay Star on Sunday. dhanka kale Isbaanishka khadka dhexe Arsenal kaga ciyaara Dani Ceballos 23 jir ayaa wada hadal la furi doona leeyahay madaxweynaha kooxdaasi caanka ah Florentino Perez si uu heshiiska amaahda Arsenal ku joogo xilligan kaga dhigo mid joogto ah oo si toos ah ugu ciyaara nadiga Arsenal. Tottenham Hotspur ayaa daneynaysa daafaca nadiga West Brom Nathan Ferguson ninka lagu magacaabo xilli Crystal Palace iyaduna xiiseynayso 19 jirkan daafaca dambe xulka England oo ciyaara Sun on Sunday ayaa daabacday. Manchester City iyo Barcelona ayaa dhammaan wada xiiseynaysa 19 jir Anderlecht ka tirsan ninka lagu magacaabo Alberto Sambi oo qad dhex ka ciyaara xilligan oo hore loola xiriiriyo u dhaqaaqi kara markii la eego kooxda Sevilla. Marka ayaa daabacaysa kooxaha Barcelona iyo City inay ku dagaalamayaan wiilkan 19 jirka ah. United-ka ayaa xiiseynaysa iyadana markii la eego hal sano oo heshiis inay u kordhiso laacibka Nemanja Matic ka heshiiskiisu dhammaan doona dhamaadka ciyaareedkan. 31 jirkan ayaa dalab ka helay kooxaha Talyaani ka dhisan gaar ahaan Inter Milan ayaana doonaysa biic horta inay ku qaad dhamaadka ciyaareedkan. Corriere dello Sport ayaa daabacday waana sheekooyinkii ugu waaweynaa suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ee laga diiwaangeliyay markii la eego